Bal ka waran daawade, adigoo islaha adduunka wax fiican oo dadka anfaca kusoo kordhi, balse aad sabab u noqoto gumaadka dad aad u fara badan. Muuqaalkeena maanta waxaynu kusoo gudbin doonaa ikhtiraacii hubka nuclear bomb-ka Albert Einstein. Haddaba, yuu ahaa Albert Einstein si muxuu adduunka kusoo kordhiyey? Su'aalahanba waxaan kaga bogan doonaa muuqaalkeena maanta. Haddaba saxaabey, kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan akhyaarta meel walba adduunka ka joogtaan. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay, subscribe saar. Haddii muuqaalkan ku cajabiyeyna like saar, siina share garee oo kusii share garee baraha bulshada ugu waaweyn sida Facebook iyo WhatsApp. Aad ayaad u mahadsan tahay. Aynu ku dagalna muuqaalkeena maanta. Albert Einstein wuxuu ahaa nin aad ugu takhasusay cilmiga fiisigiska. wuxuuna 1879 ku dhashay magaalada Ulm ee dalka Jarmalka, wuxuuna ka dhashay dabcan qoys Yahuuda. Einstein wuxuu ka baxay jaamacad ku taala dalka Switzerland, halkaasna wuxuu ku guursaday xaaskiisii ugu horeysay ee la oran jiray Mileva Marik. Sanadkii 1899 wuxuu helay dhalashada dalka Switzerland. Haddaba, Einstein wuxuu caalamka fiisigiska kusoo kordhiyay aragtida relativity-ga ama nisbiyada, isagoona soo saaray qaacidadiisii caanka ahayd ee E=mc², taasoo la xiriirtay relativity-ga, lana raaco marka la sameynayo hubka aadka u khatarta badan ee nuclear bomb-ka. 1921 wuxuu ku guuleystay jaaysada loo yaqaano Nobel Prize, balse abaalmarintan kuma qaadan qaacidadiisii caanka ahayd ee E=mc² ee la xiriirtay relativity-ga, balse wuxuu ku qaatay caawimaad uu ka geystay photoelectric effect. Einstein waxaa lagu yaqaanay nin aan badanaa muuqaalkiisa daryeelin, wuxuuna gashan jiray dhar aad uga balballaaran. Sidoo kale, Einstein wuxuu aad u jeclaa cabista sigaarka, mar walbana waxaa lagu arki jiray baybka yar ee sigaarka lagu cabo. Marka uu kala socdo gurigiisa iyo jaamacadda, waxaa lagu arki jiray daruur qiiqa oo ka dambeysa, dabcan qiiqaas oo qiiqa sigaarka. 1952 markii uu dhintay madaxweynihii ugu horreeyay dalka Israa'iil, waxaa loo soo bandhigay inuu madaxweyne ka noqdo dalka Israa'iil, balse arrintaa uu ka cudur daartay, muuna doonin inuu dhex galo siyaasadda. wuxuuna in badan ka hadlay in Yuhuudda iyo Falastiin ay dalka Falastiin ku wada noolaadaan si nabad ah. Markii uu Einstein ogaaday inuu mas'uul ka yahay sameynta iyo ogaanshaha hubka nuclear bomb-ka, aad ayuu ugu murugooday, wuxuuna waqti aad u dheer ku jiray murugo aad u badan. 1955 ayuu dhintay Einstein. Kadib dhimashadiisii, intaan la gubin meydkiisii ayaa laga saaray qaybo ka mid ah jirkiisii si loogu sameeyo baadhis. Thomas Harvey, oo ahaa dhakhtarkii goobjoog u ahaa dhimashadiisa, ayaa ka saaray maskaxdii Einstein si uu ugu sameeyo baadhis. Ugu dambeyn, waxaa la ogaaday in qaybo ka mid ah maskaxda Einstein, oo ah qaybaha ka shaqeeya aragtiyaha iyo xisaabaadka, ay 15% ka weyniin maskaxda dadka kale. Inahaas aynu ku gabagabaynaa muuqaalkeenan. Fadlan haddii aad kanaalka cusub tahay, subscribe saar. hadduu muuqaalkan ku cajabiyey, like saar. hana iloobin inaad sii share garayso. tan iyo kulanti dambe intaan ka kulmayno, fi amaanillah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.